السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan dhex mashxaadaynaa oo aan dhex maraynaa oo aan ku raaxaysanaynaa nafaqii labaad ee Jarwal ee toos kuu geynayay dhismaha cusub ee ka socda xaramka Makkatal Mukarrama ee lagu magacaabo التوسعة الجديدة الشمالية. qaybtan Jarwal waxay kaga beegan tahay xaramka dhinaca xaafadda la yidhaahdo Xay al-Jumuum haddana khaldanayn. marka waxaynu u dhaxaysaa qaybtan aadka ugu dhow qaybtan tawsicada ay ka socoto. dadka baahi fara badan bay u qabeen in nafaqaani la furo. nafaqaan yani dhererkiisii waxaa lagu qiyaasaya 1 kilomitir ilaa 2 kilomitir ayuu u dhaxeeyaa. waxa uu leeyahay 2 qaybood. qayb waxaa jira maalmo hore la furay oo hadda dhinacayga midig iga qabanaya oo asaguna isla dhismahan qaybtiisa labaad ah oo ka horreeyey kanba furitaankiisii. waxaana la furay kaas isbuucii hore, kanna maanta la furay. marka ilaahay mahadiisa weeyaan idaarada ku shaqada leh ee maamulaysa xarameynka jazaahum allahu khayr canna wa can ilmuslimiina khayran baan leenahay. waxa weeyaan dadka muctamiriinta ah hoteelada degan oo aan lacago fara badan aan haysanin ee laga yaabo qaarkood in inqitaaca subul ku dhacay in meeshan nafaqan yaro Jarwalka ay toos ugu soo baxayaan ayagoo wax lacag aanan ka bixin. marka hore tagaasida lacago fara badan ay ummadda ka qaadan jireen kala warwareeg la gelayo oo laga yaabo in wadooyinka qaar xitaa iska xiran yihiin bisabab ciriiriga iyo zaxmada jirta. marka waxaa wada socod hadda waad arkaysaan waa ummadda salaadii subax ayaa loo wada ordayaa qof walba inuu jamaacada masaajidka ee xaramka uu ku tukado. oo saa la wada ogsoon yahayna beydka ilaahay Makkatal Mukarrama kacbada halkii salaad ajarkeeda waxa uu la mid yahay 100,000 oo salaadood adigoo ku tukaday bay la mid tahay. midka Madiinana waa 1,000 salaadood ay u dhigantaa halkii salaada lagu tukada. marka qofkii shanta waqti ilaahay fursad u siiyay inuu beydkan yimaado oo ka faa'iideysto insha Allah. waxa ajaa'ib badan nafaqani ama inta kale la furay ee ummadani ku gudbaysa oo umraysanaysa oo xajinaysa oo ziyaaro u yimaaday. waxaa loo sameeyey marwaaxado qabow badan iyo mukayifaad ayaa ku xiran. oo hal mar aan la daminaynin 24 hours 7 shaqaynaya. waxaasoo juhdi ah ayaa la geliyey. intaa oo dhan waxaa loo yeelayaa dadka muctamiriinta ah iyo dadka xujayda ah inay ku raaxaystaan iyadoo la wada ogsoon yahay ardul xarameyn waa dhul saxaro ah aad u kulul. saa daraaddeed marka buuraha hoostoodii ayaa nafaqyo loo sameeyey. nafaqyadaas hoostoodii ayay kaga gudbayaan xaramka si fudud ay kaga gaari karaan ay waajibaadkoodii ay soo gudan karaan beydka ilaahay ayagoo wax tacab iyo daal aanan dareemin. ayadoo dhowr daqiiqo keliya ay sii soconayaan xaramkana saaxadiisa ay joogaan ay ku tukanayaan. hadda ramadaankan lagu joogo maanta waxaan maraynaa 16. xaramka aad uu camiran yahay laga soo bilaabo shalay oo khamiis ahayd iyo maanta oo jimco ah. aad iyo aad ayuu ma garanaysaa uu camiran yahay uu buuxa oo aad iyo aad u buuxa ma garatay. marka xitaa waa zaxmo dadka cumraysanaya qof aanan dhar ixraam wadanin xitaa kacbada gudaha ma gudbi karo. marka maalmaha soo socdan waxaaba la filayaaba in tirada ay sii dhaafi doonto